فيديو waa ku jira hay soo wacay wax nasteexan idin la hadal siinay way soo wacday mar rabo marka in la soo waco creepka laga kala gogoyo marka isagan leef kaga jira marka ha idib marka nasteexa creep baan duwaya waxaan ku yiri arrintii seefas maxaa ka xasuusataa adiga والله أنت سافرت وحياة بدن هاي محاد كحسوستا والله واحد بدن كحسوستا هرتا waxaan idin ka hilmaamay asxaabay gabar Faadima Liiraan oo soo gali doonto iyana Soomaaliya waxay u bixisay jeelogaadeen waxa la dhihi jirkay xabashida ku xilxili jirtay reer Itoobiya Soomaalida Itoobiya jeelogaadeen loo bixiyay marka magacii jeelogaadeen ka waran nasteex واقرته صح الله والله يراد بيش شيء جنيفة كورن هذا جنيفة صوص كدودي ما إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أنا تاريخ دي يقول حمايد وفوري نينكي iyo maxay ahaytay iyo maxaa kale talo maxaa xasuusan karaa maxaan kala xasuusan karaa maxay tahay gabadhaada yar subax intay naga xanuunsatay tabcaan naga noqotay nala yiri ma xanuunsane been baad sheegaysaa ku celiyo guriga because de maalin kasta qofkii la naflay waay markii ugaalidi ka degi weydo waa inuu yiraaho waa xanuunsana marka beentii runtii la kala garan waay ayaa yiriisay maalinta naga xanuunsatay oo maxay ahaytay la yiri ma xanuunsanayna ayaa guriga ku celiyo ka war ما ولا أدمير وحاول الحلو غير أملا مرة حنوصده وحتى نحمد هسه لو ما حنوصنا كعلى الله أكبر الله محان ماشى وحكسو مرنا الله محان ماشى وحكسو مرنا ماشى أصبح ويا إلهي سبحانه وتعالى نقصه بعيد إنا ناكتي وسنكدود جاينا ضدك بميسة تنينكي سنكدود جاينا لو فوري أنت نفتنا قبضت أنتوا لما دي بقول أنا هيسنا نقفرتين ولا ما دي بقول أنا سوي كل هذا شني والله بالله طريقة وقف دنا ولا دالونا عم بقول قاضو أنا هستنا أنت أنا داود كني وصانا نقصد أنتوا قول جيس جيستو يردن بيك دمبان تاجن يسوق كوري ما راعينا إلى ما حسست بري أي كوا قارضة أنتي دلوين يبلايو خمرة صاقتان أي دولة كتور كنس ده ساعة هبيني أي إنه مقال قبب إلا دلادي بقى تجيبين يا صبحين لا عرق الله مرة مسكوش أنا كفر عاش مميز قبب قدال حبرت بورني ماما ماك قبوع ها تشيلك gabdhaha Soomaaliyeed oo dhibka ku jira oo maxay ahayd dhibka maxay ahayd marmar intay qaxoontiga wuxuu bilowmaan oo kala ka cararaya dhibka intay u adkaysan waayeen maxaad siinaysaa oo wacyi gelina wallahi ana waxaan dhigaa horta wax walba waa la arkay adduunka mid hadda anaga ka sheekeynayay kuwa ka daran waa la arkay laakiin qof walba wuxuu isdeeriyaa samirka iyo ilaahay barigiisa baande sax waxa haddaan dhahno waxaan tuugsanaynaa qof ajaanib ah wadana gaale masna aan ilaahay la baqin dhibaatada la marka waxa waay dad waxaan ku wacdi lahay qof walba ilaahigiisa inuu tala saarto nolol walbana waa la maraa waa sax لا قلبنا وحلاذا وحقوني قف البن وحليه أتيجي فيلم أقاسه واساس لكن سمرة دي لهيد معناها هدي اللي بدهم كله على السمرة على السمرة كمان بديو ما أعلم بعد كبح يسانه اللي واحد لو قبيح كرا ولا إن الماشي أسكدني يسدد ينا وطن كايك نبض نقض مركي أنت أبدا وحكور الجوينة إنه وطن كان نبض ما نقض إن شاء الله بإذن الله الكريم إلهي وضن كان نبات النوغدغو ددك الصومالية جوغو ندغيسان دورنا waxaan u sheegaynaa inay dadkeenu meel walba ku dulaysan yihiin abbow dawlad la'aanta aan dawlad la'aanta nahay
haddaan dawlad lahaan lahayn oo wadan lahaan lahayn ayna dadkeenu dhibkaas soo mareen wallahi bila been ma hadda ku oo meelaha lagu gumeysanayo Soomaaliya hadda way badan tahay meel walba Soomaaliya lagu gumeysanayo maxaa keenay anaga isgaarsiinay seefaws teelogaadeen baan ka soo baxay Afrikaanka noo talinayo maanta dhahayo anaga dawladda xeesan wani talinayno oo gumeysanayo dadka shalay anaga nabad tusno nolosha tusnay walla beenta ma Soomaaliya taariikhdeeda markii laga sheekeeyo nasteexo adiga ma baad soo gaarin aniga hadda hooyada leeg baaba yaraaba markay dawladda dhacday marka waxa weeye markii laga sheekeeyo nolosha ay Soomaaliya iyo dawladeedu heerkay gaadhay iyo meesha aanu maanta sagxadda ka bilownay ka waran maalintii nasteexo waxaan xasuustaa oo kale dama wada xasuusan kare maalintii taleefanka yar oo tooslaha guryaha waa la baalay taleefanada istaantiina dhahay aan gelinay iyada roobda iyo banaanka cawska dhexdiisa aan ku qarsanay taleefankaaga yara ni maxay noo bixinaa horta waa ilmo cali yare aldhiije taleefan hadda Soomaaliya waa taleefan yar oo toosla ah oo aanu ehelka yaga ka dhigano wax noo soo tuura oo aanu ka barino ehelka yaga wax noo soo tuura aanu ilaa bixi mayne oo waxa lagu soo tuurana aanu keeyaanka bar siinayna kulli aluushayna ka noo soo bixinaya oo marmarna lagala tago marmar lacagtana loo soo diro Soomaaliya waana lagala tagaa intaanu mid noo soo bixi la adigu bixi maysa hadda markaa baxdana naag baa ku daba socoto taleefankii lacagta kugu arkaysa kasay taleefanka ka qaadaysa markaas maxay ahayd markaan iyadii baan u dhiibayna markaas intuu lacagta la soo baxo buu iskala tagay lama dacweyn kartid xagee taleefanka keentay iyo lacagta lagu oranayaa maxay ahayd Allah maalintii simikaarka la iga qabtayna nasteexay simikaar 3,000 shilin la igu soo diray aan intaan la qofka qalbiga laabanay boorsada jeebkeeda soo galiyay markay askariyadii baarisay dhab ay siisay hala la oran jiray hala ma xasuusta askariyada maxaan ku ducaysanay inaan arrimaha ka sheekayno alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa na gaarsiiyay inaan ka sheekayno alxamdulilaahi rabbil caalamiin ma xasuusta habeenkii oo intaan taleefan soo qaatay oo hooyo taleefan ii keentay oo wiil yar oo meesha ku jiray oo asigana ilaahay maxnad cirka ka soo tuura ahaa yiri meelaha taleefan lagu haystaa dadkaas aan muuqto habeenkii anagoo iskaga hadlayno meel iskaga dhakano sirreen ku kala jirna aynaagti kala maanta la dhahayo ayadana qaxootigeeda meesha ku jirta cadaabka garaacday cunug ka xanuunsadaa u malayn in la soo socdo oo aan marna naftada galnay marna inta gelinay marna cunug hurdaya hoostiisa la geliya marna wala soo bixiya aftada la geliya markaas la soo bixiya hadana madaxa lagu xidhaa markaas la soo bixiya sirrta hoosteeda la geliya ma inta way ku arkaysaa ma inta way baare ma anagayna baare Soomaali Maxamed ay wiilka saan noo galay oo najaajuusay oo telefoon bay haystaan waa Soomaali Maxamed aamin baa leeyahay isagana khayr Allah siiye waa wiil yar oo aabay hooyaday way dhintay intuu yeesna meeshan lagu la soo xireeyay waa idinka hilmaamay kaasna wuu jiro Soomaaliya oo de halka noo galay halka xaqriibkan uu daawan doonaay kollay ka toobad keen baan leeyahay habar oo dhibka nasteexan oo dhaqaya in telefoonkaas Maxamuudkayga ii keenay oo yiri hoo qari kiibaan soo sheegay anoo dhaqaya aan dabcayna biyihii dhex geliyo ma taleefan iyo biyaha la isdhex geliya waa naxdin because waana laga qaadaya waxaan ku hadalana heli mayno marka dhibabka inta le bal ka waran hadda Soomaalida nasteexay waan garanaya waxay oran doonaan iimaanka ilaahiin maxaa geliyay meesha maxay ka dooneen meesha waxaanu ka doonay qurbaan joognay tanna waa qurbataasina waa qurbe iimaanka lama la ee ku South Africa isku dhiibay 4 saac lagu maaday lagu bay kama xumeen runaaantiina Soomaaliya dhan hadda waa qaxooti qofkana meel bay ka gashay israaqadiisa kuwa Muqdisho jooga iyo Garowe iyo Hargeysa jooga kaaman baa ku yaalo hay'adu ay raashin u qaybiyaan nasteexana cadeynteeda ku haya ku yiri ayagoo raashin ka qaadanay maalmo baan ka daawadaa idaacadaha been ma taas waa ogahay marka maxay tahay iyagoo wada qaxoontiyo dalkood sida ayay waxay ku oranayaan nasteexo dadka qayb baan asxaabul aqli ahayn qayb badan baan fahmaysa in qaxoontiga dhibka ka kuwa xaqdeer markaan joognaba dhibkaas uu nahaystay Soomaha nasteexo maxay tahay marka kuwa waxay ku leeyeen maxaa meesha waxay geliyay waxaan wataa 7 caruura iskool ma awoodo gurina Nairobi ugama awoodo maxaa rabtay marka inaan xamar kuugu imaado dabeedna qaraxiga dhamaadana qarax u dhinto miyaa rabtay waa maya taa ma samayn karo marka waxa weeye inaan galo UN isu dhiibo aan maxay tahay baryo ilmaha waxa la baro halay badbaadiyaan dhaho 14 October waxaan ku jirnay aniga nasteexa meeshaasaan ku xaraysnay TV-ga maxaan ka daawanayay ilmaha iyagu TV-ga maxay ka daawanayeen TV-ga waxay ka daawanayeen dadkii maanta 1 milyan baa dhintay ma ku dhaqan xagee wadnaha siinaa xagee aadna
bal xageed nagula talin qofka maanta nalaho dad islaam maxaa meesha galiyay maxay ka dooneen qofka nalaho xageed rabtay inaanu muqdisho kuugu nimaadno miyaa rabto qaraxna dilo mase in maxay tahay gorowana lagu xidho mase in hargeysana lagu xidho jeelna loo jiido inta hadallo waxa weeye runtaan isu sheegno Soomaaliyeed runtaan isu sheegno ya meel walba qaxoonti baanu ku nahay marka ilaahay ka baqanimayo dadka dawladdu asaas ilaahay ka baqa naag adoomayana gumaysanaysa naagtana gumaysanaysa waa naag Kenyana ya iyo kuwa kale oo la shaqeeya dhulka ninka xaaqa dhulka istaano miyu ahaa nasteexay dhulka ninka xaaqa jaadu iyo istaano iyo caruurtayda wali magacyadooda xusay waa ka sheegaysa kaafiya maxay waxa la dhigi jiray baa ku magac qalmo nasteexa adiga waa dhacmeed kuwaas waa dhacmeed adduunka waxa ka dhacmeed male maxay sameynayaan ilmaha yar bay ka soo dilayaan nasteex maalintii nacnaca caruurtayda nacnaca u soo adeegto nacnaca laga qaaday hadda waa nacnaca Soomaaliyeed nacnaca bay caruurta u soo adeegtay nasteex caruurtada iyada teed way yareed maxaa la sameeyay nacnaca qorigaan ilmuhu dhuuqdhuuqaan xataa macaan u noqonayo markii jeel lagu xidho jeel baan ku jirnay markii jeel lagu xidho macaanka ilmaha waa raadinayaan hadda ma cunaan nasteexay ma cunaan marar ma soo gaday soo meelaha daadsan ka fid kurida macaan buu ahaa meesha igada kaftagaya marka waxa weeye leeysta ku jira marka Soomaali Maxamed ay dawladda saasta Soomaali Maxamed ay silca naga saara Soomaali ay hadaan caruur iyo dumar nahay waa dhibbaana haysta waxa weeye alxamdulillah anagu hadaan maanta ka soo baxnay oo ilaahayna keenay maxay dawladda Canada la soo qaado sponsor la siisay alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin gabdho badan oo walaalaheena dhibki ku jira mana ay galeen haday dal iyo dawlad leeyihiin meeshaas ma galeen way anagu dad islaamaan nahay Soomaa marka nasteexayeen arrimo badan baa marba macnaha soo xasuusanaya marka naga soo tagtay aan gubay meesha gubatay guriga dariska ahaa gubtay macnaha reerkii nagu xidhay badinkiina xigay gurigiina xigay oo maaragtay meesha waa meel oo Nairobi dhexdeeda kuma taal meel geesi ku taala ayaa habru markay gabadhan kukuyadu way gubaan hooyooyinkooda le markaas aan ogaan doonaa anagu la kukuyo hoostrigeeda ma naqaan marka gurigeena ku xigay nasteexay habartii afkaadhada la siin jirtay waa ti dabka la suray dawaati taleefanka sawiradeedana waa lagu soo diray habartii oo meesha ku qaxaysa dabkiina anagu naqabsaday anagana laba albaab baan ugu qufulay iyo kii hore saddex albaab baan ugu qufulay marka bil baad naga sii maqan tahay u malaynaya bil baad Toronto joogtaa u malaynaya marka naga sii maqan marka naag albaabada saambil ay baas ka furaan dadka dhexda haba ku ciyaaraan waan niriyo waxaan walaal albaabada naga fura way diideen waxay dhaheen qaxoontiga lama furi karo because waa tii rag iyo dumarku midna hoos deganaa midna koraan la soo ogolaan inay soo yimaadaan marka waxa la hadii la furo ragga kor fuuli kara hadhow naagaha waana la kufsaday iyo dib baa noo yimi iyo waa tii aan kor ragga loo ogolayn waadigooga sidaa darteed ayaa loo xilayaa marka habeenkii markii maxay haytay la gubay dabkii dariskii la gubay oo ma dabkii la anaguna qabsaday korontadii iyo dabkii wixii dhan korontadii baa off laga dhigay waa la dabiyay maxaa dhacay Soomaaliya iridii baa la furay waxa ii hurda aniga hoos waxa ii hurda saddexda wiilasha lama ogol kornayba hoos bay ii degeen laba qol baan degan korna dabaqana waxa la deganahay afarta yar nasteexa markaa way iga soo tagtayba afarta yar maxay ahayd ma wada qaadi kartaa ilmihii ka cad bayna qabsadeen ma dhihi kartaa dabaqi dab baa ku soo dhigay jikadii cuntadana lagu karinayo reed waaba dhinac bay ka gubaraysaa marka gabadh Saacadiya waxay sameeyay la yiraahdo habeenkii maxay tahay anigu mar dama sheekada maqlay boorsooyinkay jiidatay nasteexa inta ilmihii hilmaantay qoliyihii dariskeeda keenay waqti dadka inkastoo dadka meeshaas ay jiraan ku xiran 5 sano iyo 4 sano iyo 6 sano dadkaas kamid ah boorsooyinka jiiday 5 sano lagu xiran yahay 5 sano ay gabadhaas ku xirantay marka maxay sameysay waxay sameysay hoostrigeeda gabadha mar baan iyana ka hadli doonaa insha Allah waan ka soo hadli doonaa ilaahay ka fujiyo ninkii dhalay baa ilmaha ku kadeeday oo ku fasixi waay maxaa dhacay marka waxa dhacday marka maxay ahayd waxa dhacday gabadhaas waxa la boorsooyinka fajiyay mar dama ilmihii midha xasuusat maxay tahay aniga marka waxaan sameeyay ilmihii baan ka kiciyay duniyo gabadh leeyahay xanuunsan oo yana nugula jito garaaca duniyo gabadheedii nasteexay labadii gabdhood tii yarayd bay qaadatay marada intay ka laalaabda tii weynayd bay waxay tiri kacgal maxay tahay ka baxnaya guriga baa gubanaya carar gabadh waa xanuunsantay xoogaa way qaadatay marka cunugtii gadaal bay aaday gurigaygaano caruurtayda daad guraynayo wiilashii tumid ii soo koray laba ii kaxeeyo jiidayna ayaa nasteexay waxaanu aragnay duniyo gabadheedii qolkaygii gashay qolkaygii baan dib ugu dhaqo cunug ka soo fiir mise duniyo gabadheed baa inay sariirtay seexato rabto gurigiina dhinaca waa ka ololaya
والله waxaa soo ayatin weyn waxa laga shalay nasteexay markaan banaanka soo cararnay maxaa dhacay dad qaawan kuwa habeen kuwa isqaawiyaan midaadoomay balaa qaawisa inagu diric xeel iska seexana marka qofkii hadii la yiri dabkii kuleylkiisa iyo guriga isku gubanaya uu dareemay mara qaado ma garan qofkii oo qaawama banaanka u soo baxay marka waxaan already marka waxaan dhannahay 75 Somaha ilaa 75 baan dhannahay marka 75 qof oo barqaqaawan yahay oo caruurihii oo inayaan hurdo rabaan oo dabkan iyo waxaan ay u jeedin cunug hurdaysan waa garanaysaan caruur baa meesha loo bad caruur badan baa la wataa wixii oo dhan baa banaanka la isugu keenay marka Cecilia habeenka joogtay toku kuya hooyaduna meesha ku wada gumaysta kamida maxay samaysay marka hebel cunug ilmahaaga ma dhayihiin waa isla dadkan haday meesha ku warushaadaan ku gubtaan macnaha adigana hadhow shaqadaada iyo dhibaa ku imanay annaga nama jeclana mana rabtay marka haddaa tira ilmihii way ii dhayihiin oo dhinacaaga aad fiiriso kuwa hurdoodo geedihii dhinacan ahaa iyo beerihii kukuyada guryahooda waxay ku wareejiyaan dayr kuma wareegsana geedo dayr camal noqday oo saa isu galaysa u beeraan ma aqaan baa guryahooda ku wareegsan kukuyada dhexdeeda degan meel oo iska tuula camal oo Nairobi waxa weeye geeska maxaa dhacay marka ilmihii haddaad xaggan fiiriso cunugba gacan kuma haysadna waa naxsantay aniga marka ka yar baa xambaarsaday marka waxaan leeyahay xasbunallahu wa ni'mal wakiil bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad ilaahu hana gubin baan leeyahay habeenkii saas ay iga duubeen aniga marka ilmihii xagga haddaa fiirso ilmihii way wada carareenba ilmihii marka guriga kuma laabano guriga waa la diiday askar baa irida iska taagtay markii gabadha dunyo iyo aan ka soo bixinay askar baa irida iska taagtay dabkiina in la damiyaa la isku deeyaa adduunka waxay noogu naxdi badan Soomaaliya dadkooda gubayaan anagu magaanuna hooyadood gubaya habartii wax qaylinaya male dadkii baa la daminaya wax hadlaya male qof baa naga dhintay male meel kaniisad nasteex waxa soo taa kaniisadii dheerada dhinacaas naga ahay oo markay gaariga biitaan ugu soo wadaan suuqa soo socono Australia aadno balamaha leenahay aan soo dhaafi jirnay oo dhismo ku socday kaniisadii baa lagu xireeyay waayo qabow xunna Nairobi waa ka dhacaya marka kaniisadii baa meel dayrka ah oo gudaha cidna kuma ogolay waaba iska gali lahayn oo naf baan waday meel dayr oo dugsi ah waxa li dadkan ha lagu xireeyo marka 75 qof caruur badan waad fahmaysaa adigu ugu yaraan 50 baa caruur ama 45 baa maxay ahayd toy waa 75 waa ka badnayn because caruurtaaba waxay gaarsiin ilaa 35 ilaa 40 marka maxaan sameeynay meesh baan lagu xiray waxa li meeshaan gala meeshii markaan galay waa qaaqaawanahay kaba ma wadano annagu waliba Soomaalida iyadu Ilaahay baa naasro dad islaam anahayo maxay to qofka ugu yaray khamaarkii madaxa iyo dirci iyo waxbuu la soo kacay laakiin gaaladu waa sidii lagu dhalay qaybto marka qof baa busta la soo cararay qofkii baa haduu dhar qabay bustihii mid kale ku duubay meeshii markii lagu xireeyay ayay maxay ahayd UN bay wacday hayas bay wacday waxay tiri dadkii xaafadii waa gubatay dadkii saasa ku dhacday maxay ahayd gurigii waa la badbaadin doonaayo ma sha Allah ya laabtii naga guban waa la badbaadin doonaa guriga dabka iyo buka gaari adigu ala kulli xal laakiin dabaq qabsaday oo fadhiyay meeshii baan la geeyay markaasaanu markii dabkii la damiyaan soo laabanay baan waxaanu si weeso doonta dadka iyaga tukanay subax waagi baa barbariyay baa waqtiga waagaaba loo bariyay markaan weesadii soo doonay xaafadda soo laabanay baa waxa la leeyahay habar baa ku gubatay guriga annagana waxaan rabnaa ku qabnaa sideenoo kale in laga baxsado meesha laga tagay ilaa dabkoo meesha wuxuu ga dhacay habartaa la gubay nimanka dhaleen gubeen waxay rabeen inay dhiig ku qaataan iyo inta dadka qaxootiga dabaqan ku waraysan baa gubay baaba hadhow warkii fiigan ka daawan doonaaba ma habartii afkaadhadana si tabarta afkaadha badan geedaha afkaadha guriga ku dhixyaala kukuyada dhexdeeda kukuya bisa meesha dadkan istaxa way ogta marka afkaadhayna siin jirtay darbiga waxay naga soo siin jirtay afka geedka iyaga xataa marmar uu dhalaayo afkaadhada iska taaltaala laakiin afkaadhay marmarna siin jirtay halka naga soo siin jirtay marka habarta habar waxay ahayd oo familka kamid ah oo dadka meesha ku xaraysan ما في عمري هيدا قال هاتي مركا مامدي way hurushaado lafaheedii oo saaco ka qsan baa hadhowdii oo maartay burburay baa meeshii laga soo deeyay markaas aan naxdintaan caawa soo maray dhibkii nagu dhacay oo dhan marka horna bustayaali baa guriga lagu soo bixiyo meeshana loo keenay markaan weesadii soo doonay ilaa kaniisada balaayo gudaheeda iyo biyaheeda ma naqaane inaanu masquulihii iyo guriyihii iyo weeso soo doonay meeshii bay jiraan waxa la ilaa dabka inuu damay la hubiyo guriga lagu ma laaban karo على كل حال ورك وأنا قلت يا راضي هل كان وأنا رجلي محي تكريب كان وحو وعيقلون يهي الصومالي ميلك استيجوكتو ورولا ليالو إلهي كبغا ورولا ليالو دولة نواساس ورعهوريه نوانا ماذا ودمركين نواس العين وروار رفاضنا وركوات كفساني سانة تشوشية انتا ساكسو قبقبين يا عاد باردين سلامة يا ناس تاها محاد كنت رئيسا والله أدي قادم يسا كلي هلا تشتو صومالي هاتشتو
dumarka aad ilmaha ku dayacaysaan oo ku dayrinaysaan ka tashada أنا خير أقول جنة إن شاء الله insha allah habri macaanta oo ka salaamaya adiga iyo familka iyo cidoo dhan maasha allah aad iyo aad baan kusa kariib dambana waa ka sameynana taxanay noqonaysa haye macaanta taxanay noqonaysaa tani aywa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاد باردين السلام يا الصومالية قبل أنا على كافية اللي بنباليرها قفانا عاد تشعرها صاحبة دوية كريم كيلا صبش كافية سيف أصبحت كاسوستها waxaad xastaa markuu dabka dhacay marka anaka dhumnay iskoolka oo qalqo maxaa lahaa hal wiil dhumay iskoolka cararay ها ويل يا راسن ساريان اسنا قحوونتي ما قاسو ku noqdaan dawlad bay leedahay baasna maalin dhumay qof haduu dhumo xataa dadka madowga waa inaad wax ka raadiso inaad la rafaado way walaalaha dad meel kugu la xiraysan aad baan idin salaamaya Soomaaliya aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa walaashin Khadiijo oo idin salaamaysa aad iyo aad baan idin salaamaya waan mahadsantihiin daawashadiina like tayo نعم يا مجد like subscribe كل Soomaalida ha gaaro warkaana si ay dayaca iyo qaxoontinimada dadkooda ay uga taliyaan ragga Soomaaliyeed and iyo gabdhuhuba thank you Somali subscribe people and like